markale isku soo noqod wacan waa maalinimo talaada taariikhdu ku beegan tahay 3 bisha 3 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay Mareykanka oo ku baaqay in la joojiyo colaadda ka tagan gobolka Gedo war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dagaalkii shalay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ku dhexmaray duleedka magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo qoraalka Mareykanka ayaa waxaa loogu baaqay dhinacyada ku dagaalamay Beled Xaawo iyo duleedkeeda inay joojiyaan iskahorimaadka Ambassador Donald Yamamoto iyo safaaradda Mareykanka waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada in ay ka fogaadaan iskahorimaad hubeysan ee ka soconaya Beled Xaawo ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale qoraalka Mareykanka ayaa waxaa lagu baaqay dhinacyada hogaaminaya dagaalkaasi in ay dulqaad muujiyaan isla markaana ay u turaan shacabka ku dhaqan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo dhanka kale isku dayga ay carabta Israa'iil xukunka uga tuurayaan Netanyahu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa xadii taageerayaashiisa ku booriyay in ay u codeeyaan doorashada maanta dhacaysa ee Israa'iil si uu u helo kursiga amaba labada dheeriga ah ee uu u baahan yahay si uu u soo dhiso dowlad cusub hase yeeshee xilli uu olole ku jiray ayaa awood kale oo ka mid ah siyaasadda Israa'iil carabta laga tira badan yahay waxa ay doonayaan in ay xamaasad iyo caro ka dhanaan Netanyahu iyo xulufadiisa Mareykanka ay u adeegsadaan in ay doorashada u weeciyaan dhanka kale sharci dejiyaasha carabta ayaa bulshadooda ku booriyay in ay si weyn uga qayb qaataan doorashada maanta dhacaysa ayna muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee nabadda bariga dhexe ee loogu magac daray heshiiskii qarniga carada carabta Israa'iil ayaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa qayb ka mid ah qorshahani taasi oo dib u calaameynaysa xuduudaha isla markaana qaar ka mid ah magaalooyinka iyo xaafadaha carabta ka saaraysa Israa'iil kuna daraysa dalka mustaqbalka ee Falastiin waxaa jira qof dejiyay qorshahani waana Benjamin Netanyahu waxaa sidaas yiri ayaan odhe oo ah madaxa isbahaysiga xisbiga John Leslie oo ay carabta ku xoogan yihiin waxaan u baahanahay inaan xukunka ka turno waa nin naga careysiyay waa qof ka dambeeya heshiiska qarniga yiri odhe oo tagay xafladda Tibe oo noqon karta mid ka mid ah xafladaha laga soo saaro Israa'iil codka rayidka dadweynaha ayaa muujinaya in xisbiga Likud ee Netanyahu iyo xisbiga Blue White ee Geni Chas ay siman yihiin carabta ayaa waxay hadda baarlamaanka Israa'iil ku leeyihiin 13 ka mid ah 120 kursi haddii carabta iyo waliba isbahaysiyada dhexe ay kordhiyaan saamigooda kursiga aad ay u adkaan doontaa in Benjamin Netanyahu uu helo kuraasta dheeriga ah ee uu u baahan yahay si uu dowladda u soo dhiso 80% carabta wax ka og qorshaha Trump ayaa ka soo horjeeda sida ay muujinayso ra'yi ururin la sameeyay 24 Febraayo Eric Rodniski oo qaaday codkani ra'yiga ah ayaa sheegay in qorshaha Trump uu kiciyay carabta oo markii hore aanan inta badan ka qayb gali jirin doorashada waxaana la filayaa in doorashada maanta ay ka qayb qaataan tiro ka badan tan doorashadii ugu dambeysay oo ah 60% dadka xaqa u leh inay codeeyaan wax walba ee ka soo baxa doorashadana wararkayga xiga ayaa dib ugu daawan doontaan dhinaca kale mas'uul sare oo coronavirus ugu dhintay wadanka Iran mid ka mid ah la taliyaasha madaxa sare ee wadanka Iran ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus maanta oo talaada ninkan oo lagu magacaabo Maxamed ayaa la xaqiijiyay inuu u geeriyooday cudurka coronavirus Iran ayaa waxa uu geeriyooday cudurkan tan iyo markii uu dalkaasi ka qarxay 71 qof oo uu ka mid yahay qofkani mas'uulka ah iyo mas'uulka horeeyay wadanka Iran ayaa waxa uu noqonayaa dalka labaad ee uu cudurkani dadka badani ku dilay dhawaan Mareykanka ayaa sheegay in uu Iran ka caawin doono dhinaca la tacaalida cudurkan dhanka kale waxaa kiiskii ugu horeeyay oo cudurkani coronavirus lagu arkay boqortooyada Saudi Arabia
waxaana boqortooyadu maalmihii aynu soo dhaafnay ay muujinaysay dadaallo ay uga hortagayso cudurkani, laakiin waxaa muuqda in hadda cudurkani uu soo gaaray dalkaasi. dowladaha dariska la ah boqortooyada Sacuudi Arabiya sida Bahrain, Kuwait iyo Cumaan ayaa iyaguna waxaa horey looga arkay kiisas cudurka coronavirus ah. madaxweynayaasha Turkiga iyo Russia oo xal u raadinaya xiisada gobolka Idlib. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa Khamiista booqan doona Russia si uu madaxweyne Vladimir Putin ugala xaajoodo xiisada sii kordhaysay ee ka taagan Syria. waxaa sidaasi maanta sheegay xafiiskiisa. madaxweynaha waxa uu booqasho hal maalin ku tagi doona Russia 5 Maaj. waxaa sidaasi lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. Turkiga ayaa xaqiijiyay in ay bilowday howlgal military oo ka dhan ah ciidamada Syria ee Ruushka ay taageerto kadib isku dhacyo xooggan oo ka dhacay gobolka Idlib. Ankara oo taageerta dagaalyahanada Islaamka ee gobolka ayaa 19 askari oo Syrian ah ku dishay duqeymo ay ka fulisay diyaaradaha aanan cidna wadin. Axadii waxa ayna soo riday 2 diyaaradood oo uu maamulo isbahaysiga Syria. hase yeeshee waxaa ka go'an inay ka fogaato isku dhac toos ah oo dhexmara ayaga iyo Moscow oo ay wadaagaan xiriir ganacsi iyo mid military oo weyn. xiisada hadda ka taagan gobolka ayaa ka dartay toddobaadyadii tagay kadib markii 34 askari oo Turkish ah lagu dilay duqeymo cirka ah oo lagu eedeeyay xukuumadda Damascus. dhanka kale, Kuuriyada Koonfureed oo la timid farsamo fudud oo lagu baarayo caabuqa coronavirus. Kuuriyada Koonfureed oo ah wadanka labaad ee Shiinaha kadib uu saameynta weyn ku yeeshay caabuqa dilaaga ah coronavirus ayaa la timid fikrad si sahlan dadka lagu baari kara xanuunkan. inta badan gobolada dalkaasi ayaa laga furay goobo dadka gaadiidka wata ay isku baari karaan iyagoo aanan gaarigoodu ka digin. adeegani oo loo yaqaano drive-thru ayaa inta badan lagu yaqaanaa maqaayadaha mashquulka iyo meheradaha kale ee laga dukaamaysto. qaar ka mid ah khubarada dhinaca caafimaadka ee caalamka ayaa sheegay in habka dardarka ku socda ee ay Kuuriyada Koonfureed ku baarayso caabuqani uu yahay mid saameyn leh oo ammaan mudan. waxa ay sheegeen in awoodda ay Kuuriyada Koonfureed u adeegsatay la tacaalidda cudurka halista ah ay tahay mid aad u baaxad weyn oo ka waxqabad badan dhammaan dalalka kale oo ugu jiro Mareykanka. ku dhawaad 70,000 oo ruux ayaa isbuucii la soo dhaafay gudaha wadanka Kuuriyada Koonfureed looga baaray xanuunka loo bixiyay COVID-19. dalka Japan ayaa tirada baaritaanka ee uu ilaa haatan xilligaasi sameeyay lagu sheegay qiyaastii 1890, halka Mareykanka uu gaaray 445 baaritaan oo kaliya. sidaasina waxaa sheegtay warbaahinta ABC. ugu dambeyntii, madaxweynaha Midowga Yurub oo booqanaya xuduudda Turkiga uu la wadaaga Greega. madaxweynaha Midowga Yurub Charles Michel ayaa ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan xaaladda ka taagan xuduudda dalalka Turkiga iyo Greega, isagoo tilmaamay in uu booqasho ku tagayo Talaadada maanta si uu u soo qiimeeyo xaaladda dhabta ah ee halkaasi ka jirta. waxaana socdaalkaasi ku helin doona ra'iisul wasaaraha Greega Kyriakos Mitsotakis. arrintani ayuu kaga hadlay qoraal uu ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka, isagoo sheegay in uu taageersan yahay qorshaha ilaalinta xuduudaha Greega iyo Turkiga, halkaasi oo ay kumanaan tahriibayaal ah doonayaan inay uga gudbaan dhinacyada dalalka reer Yurub. sidoo kale waxa uu xaqiijiyay inuu kulan la qaadan doono ra'iisul wasaaraha Greega, kulankaasi oo ay kaga arrinsan doonaan qorshaha ugu habboon ee laga yeeli karo tahriibayaasha doonaya inay u gudbaan dhanka wadamada reer Yurub. Sabtidii la soo dhaafay ay ahayd markii madaxweynaha Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in wadankiisu uu albaabada u furay qaxootiga doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub, isagoo carabka ku adkeeyay in dowladda Turkiga aysan lahayn tababar ay ku xakameynayaan qulqulka tahriibayaasha. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dowladda Turkiga Suleyman Soylu
oo warbixin ka soo saaray taariibayaasha waxa uu shaaciyay in tirada muhaajiriinta ka tagay waqooyiga magaalada Edirne ee dalka Turkiga oo xitaa dhanka Yurub ay gaarayaan ilaa iyo 100,000 oo qofood oo muhaajiriin ah.